Bismillahirrahmanirrahiim saaxiibayaal halkani waa warbaahinta qaranka ku soo dhawaada wararka aan idin hayno qodobada aad daawan doontaanna waxaa qayb ka noqonaya Mukhtaar Roobo oo banaanka keenay sirta xarigiisii sida loola dhaqmay inuu madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya noqonaya xog sir ah oo banaanka keenay intii uu ku jiray xabsiga iyo hadaladii xanafta lahaa ay dhaheen farmaajo iyo sidoo kale Fahad Yaasiin hadalka Roobo oo hordhac u ah weerarka filla Soomaaliya ku tahay lafta green iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed oo gudkiisii biyo ugu soo galeen Xasan Sheekh Maxamuud oo xil sare u magacaabay saygii hore ee Ilhaan Cumar yaa hogaaminaya tirinta codadka doorashada ka soconaysa wadanka Kenya William Ruto mise Odinga khasaarihii rabshadihii ka dhacay Somaliland oo sare u kacay qodobadaasi wixii nagu soo kordhay ayaad ku daawan doontaan wararkeena balse inta aanan u gudagelin daawadaheena qiimaha badan waxaan ka codsanaynaa marka koowaad inaad channelka subscribe noo saarto sidoo kalena aad muuqaalka like saarto sidoo kale waan idinkaga mahadcelinaa saaxiibayaal maalmihii la soo dhaafay sida quruxda badan ee ay daawadayaashu u garteen inay channelkeena subscribe dhahaan iyaga oo sidoo kale gartay hadaladii xushmada lahaa ee maalmahan aan uga codsanaynay inay dabcan channelka nala kiciyaan waa mahadsantiin saaxiibayaal aynu ku bilownay habeennimadii xalay ahayd waxaa mar qura warbaahinta ka soo muuqday Mukhtaar Roobo kaas oo ka hadlaya arrimo ku saabsan xarigiisii iyo sida ay ula dhaqmeen kooxda nabad iyo nolol Mukhtaar Roobo iyo siyaasiyiinta Koonfur Galbeed hadaladoodu waxay u muuqdeen fariin toos ah oo ay filla Soomaaliya u dirayso lafta gareen taas oo ah in uu baneeyo kursiga Koonfur Galbeed oo horey dhiig loogu daadiyay kulan fariin siyaasadeed oo xoogan loogu diriyay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis lafta gareen ayaa shalay ka dhacay magaalada Muqdisho kulanka ayaa waxa isuga hor yimid hormuudka siyaasadeed ee Koonfur Galbeed oo ay kamid yihiin Shariif Xasan Maxamed Cusmaan Jawaari Maxamed Aadan Fargeeti Ilyas Xasan Cali iyo siyaasiyiin kale oo ka soo jeeda dhamaantood Koonfur Galbeed hase yeeshee shakiga qayb weyn giliyay dadka ayaa waxa uu yahay in Mukhtaar Roobo uu si dadban u sheegay inuu noqonayo madaxweynaha Koonfur Galbeed marka uu kursiga baneeyo lafta gareen waxa uu yiri markii qof kamid ah dadkii ku sugnaa goobta uu weydiiyay in uu ka heli karo fiisa xajka ah waxa uu yiri waxa macquul ah inaan gaarin sanadka dambe taasoo fariintu ay tahay waxaan u socdaa inaan noqdo madaxweynaha Koonfur Galbeed kii bedeli lahaa lafta gareen Mukhtaar Roobo ayaa sidoo kale ka hadlay fariimo sir ah oo ay hore u qarin jireen kooxda nabad iyo nolol kaas oo ah sidii loola dhaqmay intii uu xabsiga ku jiray waxa uu sheegay in lagu xadgudbay sidoo kalena qalad weyn laga galay laakiin warka la yaabka leh ee Mukhtaar Roobo ka soo yeeray ayaa ah in xilligan uu qof kasta oo ku xadgudbay cafis u fidinayo inkastoo uu sheegin inay farmaajo iyo Fahad ka mid yihiin dadka uu cafiska u fidiyay shirkan ayaa ahaa kii labaad oo ay yeesheen siyaasiyiinta Koonfur Galbeed iyo kii ugu horeeyay ee uu ka qayb galo Mukhtaar Roobo maxbuus hore haddana ah wasiirka arrimaha diinta iyo awqaafta ee Soomaaliya waxaana shirkooda u ahaa isbahaysi toos ah in kooxda nabad iyo nolol xilligan lugtii ugu dambeysay ee dhinaca maamul goboleedyada laga jibiyay shirka ayaa lagu sheegay in munaasabadan soo dhaweyn loogu sameynayo Roobo hase yeeshee waxa xogaha aan ogaanay ay yihiin in xilligan uuba ololo siyaasadeed ku bilaabay Mukhtaar Roobo ka hor doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed doorashada ayaa dhacaysa bisha waa dabcan December waxaana jira qorshe uu lafta gareen ku doonayo in uu gabi ahaanba xilligaas dib uga dhigo doorashada laakiin waxa muuqata in filla Soomaaliya iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda Koonfur Galbeed ay weerar toos ah ku yihiin xogaha aan helnay waxay sheegayaan in madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya dhankiisa uu isku dayayo inuu isbahaysi la sameesto dawladda Itoobiya iyo sidoo kale kooxdii hore ee nabad iyo nolol oo waqtigu ka dhamaaday waxaana uu ciidamadii ugu badnaa oo Itoobiyaan ah geeyay magaalada Baydhabo iyaga oo ammaankiisa sugaya taas waxay ka dhigan tahay in lafta gareen uu si toos ah u leeyahay yaa iman kara lafta gareen ayaa toddobaadkan ka soo laabtay safar uu Itoobiya ku tagay inkastoo madaxtooyada Itoobiya waa dabcan Koonfur Galbeed ay sheegtay in safarkaas uu ku tagay kaliya dhulka dawlad deegaanka Soomaalida laakiin xogaha aan helnay waxay sheegayaan in uu Abiy Ahmed la kulmay iyo sidoo kale siyaasiyiin waaweyn oo dhinaca Itoobiya ah wixii ku soo kordha saaxiibayaal wararkeena kale ayaan idinku soo gudbin doonaa insha Allah haddaba aragtidiina in xilligan Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo ah wasiirka warfaafinta waa dabcan wasiirka diinta iyo awqaafta Soomaaliya wax yar oo markii la magacaabay kadibna uu fariin toos ah oo noqonayo inuu noqonayo bisha December ee soo socota madaxweynaha Koonfur Galbeed sidee kula muuqataa macquul sama tahay lafta gareen oo ay dawladda dhexe weerar weyn ku tahay inuu muddo kororsi sameeyo aragtiyadaas ay daawadayaashu dabcan la falanqeyn karaan dhanka kale
wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud ayaa la taliye sare loogu magacaabay saygii hore ee Ilhaan Cumar. La taliyaha dhinaca arrimaha siyaasadda ee madaxweynaha ayaa loo magacaabay Axmed Cabdisalaam Xirsi. Axmed Cabdisalaam Xirsi ayaa ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota, wuxuuna caan ku ahaa inuu u dhaqdhaqaaqi jiray arrimaha bulshada. Axmed Xirsi ayaa waxa uu u mahadceliyay madaxweynaha inuu xilkaas u magacaabo, isaga oo ku tilmaamay inuu yahay mid uu u baahnaa xilligan, sidoo kalena uu mas'uuliyad weyn tahay in dusha loo saaray. Waxaa sharaf weyn ii ah in la ii magacaabo la taliye sare oo arrimaha siyaasadda ah, kalena talin doona madaxweynaha tobanaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha kalsoonida uu igu qabo iyo sida uu iigu aaminay inaan ka caawiyo dhaqangelinta ajendihiisa siyaasadeed ee ah Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah, ayuu yiri Axmed Xirsi oo qoraal ku soo dhigay bartiisa Facebook. Waxa uu sidoo kale sheegay inuu madaxweynaha kala shaqeyn doono shaqada adag iyo sidoo kale mas'uuliyadda loo igmaday. Wuxuu cadeeyay in xilligan ay muhiim tahay in uu wadanka iyo qarankaba kala shaqeeyo horumarintooda. Waxaana uu sheegay inay tani tahay mid ka mid ah ujeedooyinka uu xilligan u doonayo inuu qaranka Soomaaliyeed ka shaqeeyo horumaradooda. Dhanka kale haddii aan eegno, waxaa isbeddelay iyo warar dheeraada laga helayaa banaanbaxyadii ka dhacay Somaliland. Khasaare kala duwan ayaa jira iyada oo dowladda Mareykanka ay fariin weyn u dirtay mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadda Somaliland oo xilligan qir ay ka taagan tahay, lagana cabsi qabo in maalinimada Sabti ah dagaal toos ah la isu farasaaro, maadaama mucaaradka hogaankoodu ay sheegeen inayba xukuumad kale oo ku meel gaara ka dhinac dhisan doonaan Hargeysa. Dowladda Mareykanka ayaa xukuumadda iyo madaxda mucaaradka Somaliland ugu baaqday inay ku soo laabtaan miiska wada hadalka. Qoraal ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda Mareykanku ay mucaaradka iyo muxaafadka Somaliland u soo jeedinayso inay ka fogaadaan qaska siyaasadeed ee ay ku soo laabtaan miiska wada hadallada. Badbaado qarantu ayaa ka soconaysa magaalada Hargeysa, iyadoo ay tani u muuqato mid si weyn ay mucaaradku u samaysanayaan xisbi midaysan oo looga soo horjeedo dowladda, kuwaas oo iyaguna ay ula magacbaxayaan badbaado qarantu. Laakiin dadku waxay isweydiinayaan xaggee ka dhici doontaa badbaado qaran 3 oo iyaduna ah mid maalmaha soo socda ama bilaha soo socda la arki doono. Warka qoraalka ah ee ka soo baxay Mareykanka ayaa lagu yiri, waxaan ku boorinaynaa xisbiga talada haya iyo sidoo kale hogaamiyaasha mucaaradka Somaliland inay ka fogaadaan qaska inta mudaharaadyadu socdaan, ayna si degdeg ah u soo noqdaan wada hadalladii siyaasadeed. Qoraalkaas ayaa ahaa mid si weyn loogu adkeynayay. Qoraalka ayaa lagu sheegay in khilaafku uu khatar gelinayo nidaamka dimuqraadiyadda ee Somaliland 30 sano ku faanaysay. Guuldarradan waxay tahay mid keeni karta in la heshiin waayo, khilaafka doorashada ka dhashayna uu gaaro heer lagu kala tago, taas oo ah mid aad iyo aad u cabsi gelinaysa dhinacyada xilligan isku haya doorashada. Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa xilligan qorsheynaya inuu si toos ah muddo kororsi ay mucaaradku diidan yihiin ugu darsado, halka mucaaradkan ay ku baaqayaan in doorashadu ay si degdeg ah u dhacdo, waana sababta ugu weyn ee xilligan la isku hayo. Ugu dambeyntiina haddii aan eegno halkee bay kala marayaan doorashooyinka Kenya, codadka la tiriyay, Raila iyo sidoo kale Ruto yaa xilligan hoggaanka haya. Shacabka Kenya ayaa maalintii afaraad ka dhowr sugaya natiijada doorashada madaxweynaha codeynteeda oo dhacday 9kii bishan Agoosto. Warbaahinta maxalliga ah ayaa natiijooyin kala duwan oo hordhac ah soo bandhigaya, waxaana xilligan looga digay ku dhawaaqida qofka guuleystay inaysan warbaahintu soo bandhigin, maadaama xogaha qaar ay yihiin kuwa been abuur ah. Haddaba waxay dadku isweydiinayaan hanaanka loo maro ku dhawaaqista natiijada doorashada madaxweynaha Kenya oo ah mid xilligan si aad la iskugu hayo. Wakiilada goobaha codeynta ayaa mid u soo gudbinaya warqadaha natiijooyinka codadkii laga tiriyay goob kasta, waxaana loo yaqaanaa Form 34A. Wakiilka guud ee guddiga doorashada u qaabilsan wadarta goobaha codeynta ee guud ahaan wadanka ayaa la wareegaya warqadahaasi si uu u hubiyo, isaga oo markaas kadibna natiijada uu magaceeda ka dhigayo Form 34B. Madaxweynaha
waa gudoomiyaha guddiga doorashada Kenya oo ah wakiilka qaran ee doorashada ayaa la wareegaya warqadaha waxaana uu gabi ahaanba isku ururin doonaa. tan iyo Khamiistii waxaa socota xaqiijinta uu gudoomiyaha ku sameynayo warqadaha ugu dambeeya isaga oo laga filayo in uu soo gabagabeeyo shacabka hortiisana uu ka sheego natiijada kama dambaysta ah. xilligan waxaa socota tirinta codadka. Raila Odinga waxa uu siyaasadda xilligan si weyn uga dhex muuqdaa. William Ruto ayaa sidoo kale isaguna hardan weyn kala kulmaya dhigiisa kale. labadan ayaa ah kuwa ugu cadcad waa musharaxiintan doorashada, iyadoo ay sidoo kale jiraan musharaxiin kale oo tartan ka qayb galay laakiin saameyntooda siyaasadeed aysan si weyn u muuqan. natiijooyinkii horudhaca ahaa ee horey loo soo gudbiyay waxa ay ahaayeen in 53% uu William Ruto ku hogaaminayo. sidoo kale Raila Odinga ayaa xilligaas haystay 46%, laakiin xilliga natiijooyinkooda aad ay isaga agdhow yihiin. waxaana jira xogo xilligan la helayo oo ah in doorashada ay u muuqato in William Ruto uu ku soo baxayo. Ruto waxa si weyn uu mucaarad uga kulmayay dhinaca madaxweynaha, laakiin xilligan Uhuru Kenyatta ayaa u muuqda inuu taageerayo, iyada oo Kenyatta uusan taageeradiisa iyo diidmadiisa waxba soo kordhinayn maadaama waqti xileedkiisa uu dhamaaday. sidoo kalena sida dastuuriga ah wadanka Kenya uusan ku laaban karin mar kale inuu noqdo madaxweynaha wadankaas. saaxiibayaal, wararkeennii ayaa intaas ku soo gabagabaynaynaa. inta aan qaybta kale xigta ku kulmi doono daawadayaasheena qiimaha badan oo waxaynu leenahay nabadgelyo.